saraakiisha ciidamada qalabka sida dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib maantay waxaan idinkugu nimid inaan idinku bogaadinno idinkugu hambalyayno idinla qaybsanno dagaalka xaqa ah eed kula jirtaan cadowga argagixisada ah annagoo si gaara runtii idinkugu bogaadinayna maalmihii la soo dhaafay tallaabta lama ilaawaanka aad ka qaadeen argagixisada argagixisadu galmudug waa soo daandaansadeen insha allahu way naga shalaayaan waxaan leenahay ciidankaas geesiyaasha ah xaq u dirirka ah diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda ka difaacaya argagixisada aan waxba reebayn inta dhimanna waa cirib tiraynaa waana ka xoraynaynaa galmudug guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanada ay hadda soo aadeen oo ay dadka shacabka ah oo reer guuraaga ah oo xoolodhaqatada ah ay ku dhibayaan oo xoolahoodana boobka ku cunayaan deegaankay degan yihiinna ay xoogga oo kicinayaan waxay naga tahay annagoon u kala harin argagixisada inaan si waafiya gacanta u saarno insha allah aad baa u mahadsantihiin sidaad nafta ugu hurteen sidaad dadkiinna iyo diintiinna dalkiinna uga difaacdeen cadowga halkan cashar waa laga sii jiray galmudug argagixisada casharna waa laga siinaya waana laga sii way imaan jireen wayna tegi jireen iyagoo dulmigoodii ka soo baxay iyagoo diin la'aantoodii ka soo baxday ayagoo doqonnimadooda ka soo baxday haddana way naga tegayaan iyagoo intii hore ka sii liita annagoo wada jirnaan ku dhiiranaynaa annagoo wada jirnaan gacanta saaraynaa annagoo wada jirnaan ilaahay ka baryaynaa inay wax ka yimid khawaarijta nagu dhacaan annaga cabsi kama qabno xabadaan leen ku dhifanayaa iyo khawaarijta maaragtay daday meel u dhigeen iyo daday maaragtay meel u geliyeen dhagar u geliyeen kama qabno cabsi waa naqaan dhagartooda iyo khiyaanadooda xun oo raqiiska ah oo ay ku bannaysteen nafta iyo maalka iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed muslimiinta ah waa ku dhaqaaqaynaa waana ku dhaqaaqdeen tallaabna waa ka qaadeen inta dhimanna waa dhammaystiraynaa innaguna dowladda galmudug anaa ugu sarreeya waan raacayaa ilaa yira annagu deegaano iyo maamullo kalaan difaacuna oo aan ka hor taagannahay argagixisada maahan galmudug oo kaliya maamullaan ka hor taaganna aan hubno inaan haddayna hor taagnayn ay dhagartooda dhaqso u gaarsiin lahaayeen annagaa ka hor taagan annagaa ka difaacayna cidna xitaa ugama rabno wax gaara oo dad Soomaaliyeed waa deegaan Soomaaliyeed oo inaan difaacno oo xorayno xaq noogu leh